عويسكن oo mid ka soo qayb galeen dhalinyarada aqoonyahanka ardayda iyo maamulka jaamacadda Alfa ee magaalada Burco jeedkiisu noo daarana si lecture qiimo badan uga soo jeedin lahaa tababar Jabir silsilo kamid ah dhalinyarada gobolka Caweyskan sida heerka sare loo soo qaban qaabiyay isla markaana hanaankiisa dhicitaan sida heerka sare loo soo boqray ugu horeyntii waxa halkaas hadlay isla markaana lecture-kiisa ka soo jeediyay tababar silsil oo soo bandhigay qorshayaasha nafta ay u baahan tahay sidoo kalena laga gudbi karo marxaladaha kala duwan ee bulshada haysta hadda si ay noloshaadu noqoto nolol qurux badan hadafkaaga iyo dadaalkaaga waa inaad ku laddaa qorshe cayimaya meesha aad gaarayso horta wax walba oo adduunka yaalla waa natiijo bila aadan u keenay hadafkaaga wuxuu ka mid yahay aad hayso waxyaabaha ay bila aadanku ay sameeyeen waad gaari kartaa waanaad samayn kartaa waxaad ku wanaagsan tahayna oo wax kamid ah noloshaada qaybta ah waxaana waad haysanaysaa oo isticmaalaya adigoo isticmaalaya hadafkaaga waad ku hawlgalaysaa hadafkaagu wuxuu kaaga baahan yahay inaad qorshe u dhigto inaad dadaal iyo samir adkaan iyo isdhiib la'aan iyo inay ku caddahay meesha hadafkaagu yahay oo qorshe ku leeran yahay inaad gaadho taas baad ku gaari kartaa hadafkaaga waxaad ku wanaagsan tahay waa wax aad ku wanaagsan tahay laba shay oo qof adiga shakhsi ahaantaada kugu lamaan labada shay oo ah daciifnimo iyo awood waxaad ku wanaagsan tahay marka waa awooddaada hadafkan aad leedahay aad gaari عليها أنك تكون أكثرين وماشى ضعيف كتها كشقي ماشى ضعيف كتها كل ده النفسية وليسنا ماشى أول كلها وحيجونا هالكاسكات اللي حمنا دنيرة إيو أرضي كميدة جامعة ألفا ماشى وحين قلت سيد تبا إن وحجرتها همتي ووقفي عن أما وقف كتوسينية وتد الجوش بريتولين المال مرتو محفوظا بوعاوي نوشاي hankiinu dhiirigeliyay hankaagu hadduu yaraado hilowga nafta abuurma hayaankuna been ma sheegee horaan u tawaabushaystay anoon hamigayga gaadhin wallee hog madow ma eego waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaynu sidaa wada nidhaahno wallee hog madow ma eego qof walbana uu naftiisa halkaa wanaagsan wax inaga tusay oo wax ka tuso inay hesho tiyo aad u adag oo tiyada waxbarashada aad u adkaato imtixaanaadkeedu adigii waxbarashadeedu systemka wax loo dhiga u adigii taas waxay keentay intay jaamacaddeedu shaqaynaysa ama ardayda ku jirta ilaa 10 qof shaqo caalami ah ay helaan shaqo tageen gudoomiyaha jaamacadda Alfa Fariicida magaalada Burco Cabdiqani Ibrahim Xasan ayaa bogaadiyay tababar Jabir silsil waxaanu ku tilmaamay shakhsi ku dayasho mudan lecture-kan waxa lecture motivation oo dhiirigelina aad u wanaagsan madaxda barnaamijka oo soo diyaariyay ama laha qalqaabada hawsheena soo tagasho sidoo kale aad u mahadcelinayaa barasare Jabir runtii aad u wanaagsan runtii caawa wuxuu aad idin fahansiiyey sida naftaada aad qorsho ugu samayn lahayd qof walba wuxuu leeyahay hami ama higsi laakiin way adag tahay qof walba sidoo uu uga madhaliyo inkastoo qadar ku jiro oo wax kastaaba ay jiraan qoraal oo qof kasta markuu guurkiisa hooyadii ku jiro la qoray waxa qaaliyo wixii qoray laakiin hadda sidoo kale wax loo baahan yahay dadaal runtiina hadaf yeelataana waa muhiim qofku inuu hadaf yeesho oo uu siraado wax kasta oo noqon kartaa waa muhiim wax kasta oo noqon kartaa gabagabadiina waxa ka soo qayb galayaasha halkaas su'aalo ku weydiiyeen tababar Jabir silsil waxaanu si waafi uga jawaabay su'aalaha dhamaantood sidoo kalena qaar kamid ah ka soo qayb galayaasha ayaa u mahad celiyay tababar Jabir silsil jaamacadda Alfa Fariicida magaalada Burco ayaa shaqada sharaf ku maamustay tababar Jabir silsil gabagabadii waa Cabdir Sakronto wararka magaalada Burco